أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cantar Sayid Xuseen. waxaan soo wadnay casharadii aan ku baranaynay Excel 2013ka. casharkeena maanta waa casharkii labaad. casharka ka horreeyay waxaan ka soo hadalnay horodhaca Excelka, wuxuu yahay Excel. sidoo kale waxaan ka soo hadalnay sida aan u kici lahayn, isla markaasna aan u xiri lahayn, aan u save gareyn lahayn waxa loo yaqaano workbook amba work file-ka amba Excelka saan u save gareyn. maanta marka waxaan qaadanaynaa insha Allah taala casharkeena labaad. wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u baran lahayn, sida aan wax ugu qori lahayn eraya amba numbers, sida amba number aan ugu qori lahayn Excelka dhexdiisa ayaan baranaynaa. sidoo kale waxaan baranaynaa waxa loo yaqaano sheetka wuxuu yahay ayaan baranaynaa, amba warqada Excel ku jira wuxuu yahay ayaan baranaynaa, anagoo sameyn doona in aan kusoo darno warqado cusub, isla markaasna magaca aan ka bedelno haddii aan u baahanahayna aan tirtirno warqadahaas oo ku dhex jiro amba fileka ku dhex jiro amba workbook ku dhex jiro. sidoo kale waxaan baranaynaa sida aan u copy lahayn amba aan u dhaqaaji lahayn warqada oo aan anagoo isticmaalayna qaabab badan. sida ugu dambeyntiina waxaan baranaynaa quick access toolbarka. quick access toolbarka casharka horreeyay wax yar ayaan kasoo taabanay. waxaan baranaynaa insha Allah taala qeybab kale oo la xiriira quick access toolbarka, anaga oo rabnay inaan aqoonteena aan u leenahay quick access toolbarka inaan wax kusii kordhino haddii ilaahay dhaho insha Allah taala. haddaba haddii aan imaado Excelka, haddii aan imaano dabcan saa ogtiin Excelka wuxuu ka koobmaa cells ayuu ka koobmaa, oo saa hor kugu soo sheegay cell kastaba wuxuu ka imaaday, cell kama imaanin, wuxuu ka imaaday columnkii iyo rowgii meesha iska taabtaan ayaa wuxuu noqonayaa cell ayuu noqonayaa amba unug wax loo yaqaano. haddaba haddii aan rabnay inaan wax ku qorno, marka hore waa inaan cellkan wax ku qorayno aan soo highlight garayna amba soo select garaynaa, click ayaan siinaynaa. sidoo kale waxaan isticmaali karnaa arrow-yadana waan isticmaali karnaa si aan u gaarno cellkan u baahana haddii uu noo dhow yahay. haddii uusan noo dhoweyna dabcan waxaan ku qasbannahay in aan isticmaalno muuska inaan isticmaalno. haddaba markaa cellka aan click aan ku siiyo, dabcan cellkan wuu select garaysan yahay, saa ujeedin afarta dhinacba waxaa waaye calaamada highlightka ayaa saaran. isla markaa name boxka amba meesha magaca cellka haddaa fiirisidna wuu ku sheegayaa cellka taagantaa magaciisa ayuu ku sheegayaa. haddaba markaa taagantaa cellka ayaa waxaa qoraysaa waxa u baahantaa. kasoo qaadba haddaa u baahantaa inaa erey ah qortid, kasoo qaadba enter ayaa u baahanaa inaan qorno, sidaas ayaan u qoraynaa oo enter ayaan taabanaynaa markii aan qorno, just waan type garaynaynaa oo keliya. haddii aan u baahanahay inaan numbers qorno, numberska ayaan type garaynaynaa, enter ayaan leenahay amba tab ayaan taabanaynaa si aan ugu sheegno Excelka in aan meesha aan wax ku qornay. intaas haddaba hadda ugu gudubno sida aan Excelka wax ugu qorayno. haddii aan meeshaan hoose aan imaadin, dabcan meeshaan hoose waxaa ka muuqdo sheet ayaa ka muuqdo. sheetkani magaciisa lesson 1 ayaan u bixinay. okay, markii aan u baahannahay inaan sheet kale aan kusoo darno workbookani amba Excel filekani, waxaan imaanaynaa meeshaan yaroo plusta ayaan imaanaynaa oo saa ujeedaan new sheet ayaa soo baxayo, click ayaan siinaynaa oo sheet ayuu kusoo daray. markaan click siino, haddaan click siiyo sheet kale ayuu kusoo daray, haddaan click siiyo sheet kale ayuu kusoo daraya. haddaba meeshaas ayaan waxaan ka isticmaalaynaa in aan sheetka aan kusoo darno. haddaba sheetkani dabcan waxa micno ma sameynaya unless aan u bixiyo magacaan u baahanahay. haddaba qaabkee ayaan ugu bixinayaa magacaan u baahanahay? qaabkaa ugu bixinaya dabcan waxay noqonaysaa laba qaab ayaan ku tusaa, laakiin intaas ka badanna waa la sameyn karaa. qaabka ugu horeeya waxaa waaye inaan imaano sheetka ayaan imaanaynaa oo falaarta ayaan kor keenaynaa, double click ayaan siinaynaa. double click oo boobsiisa ayaan lefty oo double click ayaan siinaynaa. double click markaan siino, saa ujeedaan sheetka uu highlight garaysmay, isla markaasna kansar ayaa boodboodoy. taas micnaheeda waxay tahay in uu diyaar u yahay in aan magaca u bixiyo uu qaato. haddaba haddii aan u bixiyo lesson 2 ayaan u bixinayaa oo casharka labaad, enter ayaan taabanaya. enter markaa taabto, dabcan sheetkii magaciisa wuu bedelmada oo sheet 1 ma sii ahaanayo, wuxuu noqonayaa wixii aan u bixiyay. okay, hab kaloo waxaa jira oo aan sheetka magaca uga bedeli karo. habkaas waxay noqonaysaa okay, right click ayaan taabanaya, kadib ayaan waxaan aadayaa rename. micnaheeda waxaa waa magaca ka bedel, waa magac kale u bixi. okay,
okay left click ayaan taabanayaa dabcan markuu kasarka uu bodbodo ayaan waxaan u bixinayaa magac ayaan u bixinayaa cantar ayaan u bixinaynaa sheetkani okay sidaas ayaan sameyn karnaa oo sheet kastaba magaca waan ka bedeli karnaa taasna waa muhiim waa qofku inuu yaqaano sheetka sida magaca looga bedelo hadhow waxa waaye markii aad business u shaqeynaysid amba company la joogto amba adiga naftigaaga aad rabtid inaad wax diyaarsatid sheet kasta waa inuu magac ku lahaado ayaa muhiim si hadhow si yar oo fudud aad u baaran kartid haddaba intaas markaan uga soo tagno haddii aan lacala u baahanahay sheetkan inaan tirtiro waxaan leeyahay okay right click ayaan taabanayaa dabcan waxaan leeyahay delete ayaan leeyahay delete waa titir waay wuu titirayaa sheetkaas meesha wuu ka baxay okay right click ayaan taabanayaa kabacdi delete left click ayaan hal mar taabanayaa delete ayaan leeyahay wuu ka baxayaa meesha marka qaarkood waxaa laga yaabaa in aan sheetka naftigiisa aan u baahanahay in aan format aan ku sameeyo inkastoo aan bara doono insha allahu tacaala sida loo format gareeyo numberiska iyo taxiga iyo maxaa la dhahaye chartiga iyo waxa dhan si loo format gareeyo casharada dambe ayaan ku bara doonaa laakiin hadda haddii aan u baahanahay inaan sheetkan format gareyno oo aan wax kusoo aan xoogaa formatting aan u sameyno okay left click ayaan taabanayaa dabcan tab color ayaan taabanayaa colorka ayaan rabo ayaan taabanayaa saa ujeedaan colorka markaa u dhawaada meeshaan wuu isbedelayaa colorka markaan taabto soo guduudkaas ayaan click siinayaa saa ujeedaan marka sheetkii color ayuu yeeshay hadda cantar wuxuu leeyahay color ayuu leeyahay sidaas ayaan u color garay karaa haddii aan imaado wax loo yaqaana move oo ah in sheetkii aan dhaqaajiyo ayaan u baahanahay okay laba hab ayaan ku dhaqaaji karaa oo kasoo qaadba hadda midkan lesson 1 ayaan rabaa inaan dhaqaajiyo okay right click ayaan taabanayaa dabcan move ayaan click ku siinayaa anoo leftiga isticmaalay okay meeshan waxaa ka muuqdo okay maxaa la dhahaa buugayga amba workbookayga magaciisa waa Excel 2013 haddaba inta sheetkii ayaa ku yaalo waxaan leeyahay sheetkani ayaan waxaan u baahanahay in aan keeno soo move gareeyo ayaan u baahanahay oo waxaan leeyahay sheetkan soo move gareeyo waxaan keenayaa to the end okay ayaan taabanayaa wuu soo move gareynayaa meesha ugu dambeysa ayuu keenayaa okay so marka habkaas waa la sameyn karaa laakiin hab kale ka wacan ayaa jiro oo ka wanaagsan isla markaasna ka fudud okay sheetka naftigiisa aad move gareynaysa ayaa qabanaysaa kasoo qaadba sheetkaas markaa left click ayaa taabanaysaa waa haynaysaa markaa haysid meeshaa rabtid markaa rabtid inaad move garaysid kasoo qaadbo haddaa u baahan tahay cantar iyo sheet 3 inaad dhex dhigtid waa sii daynaysaa meeshaas ayuu dhex istaagayaa haddana waa qabanaysaa haddii u baahan tahay inaad horey aad geysid meesha ugu horeysa aad geenaysaa waa sii daynaysaa haddaba saas ayaa u move garaynaysaa okay haddii aad u baahan tahay sheetkan saddexaad inaad aragtid okay left click ayaa click ku siinaysaa wuu imaanayaa haddaa u baahan tahay sheetkan sidoo kale haddaa u baahan tahay sheetkan sidoo kale haddaa u baahan tahay sheetkan sidaas ayaa ku imaanaysaa oo sheetka saas ayaa ku arki kartaa amba waxaa isticmaali kartaa control page down waxaa marba sheetka u baahan tahay ayaa ku aadi kartaa control page upna dib ayuu kuu soo celinayaa habkaasna waa isticmaali kartaa for example meeshaan numbers ayaan ku qoraynaa okay haddii aan u baahanahay sheetkan wax ku jiro inaan koobiyeeyo oo sheet cusub aan ku koobiyeeyo waxaa la yiraahdaa copying sheet ayaan amba warqad ayaan koobiyeynayaa si marka warqada aan u koobiyeeyo okay waxaan isticmaali karaa inaan highlight gareeyo control C aan dhaho sheet cusub aan furo control V aan dhaho habkaas waa isticmaali karaa habkaas marka holder ayuu qaadanayaa hab yaroo ka fudud ayaan ku tusayaa oo ah okay sheetka rabtid inaad koobiyeysid ayaa left click qabanaysaa markaa qabatid haddaba haddii asaas aad dhahdid wuxuu noqonayaa move ayuu noqonayaa si marka movekii copy oo ugu daro control ayaa qabanaysaa controlka markaan qabtay saa ujeedaan warqadii waxaa kusoo sawirmaayo plus ayaa kusoo sawirmaayo okay pluskaas ayaa wuxuu noo sheegayaa in warqad sheetkii amba lesson 1 wixii ku jira inaan koobiyey rabo okay meeshaan ku koobiyeynayo ayaan geenayaa kasoo qaadbo waxaan geenayaa meesha ugu dambeysa ayaan dhigayaa waan sii daynayaa markaan sii daayo saa ujeedaan lesson 1 copy 2 ayuu sameeyey double click ayaan siinayaa magac ayaan ka bedelayaa oo kasoo qaadba waxaan u bixinayaa jijo ayaan u bixinayaa intro ayaan leeyahay lesson 1 wixii ku jira iyo jijo wixii ku jira isku wax ayay noqonayaan because of lesson 1 wixii ku jira ayaan soo koobiyey okay sheet kale ayaan ku koobiyey simple saas ayay noqonaysaa
ugu dambeyntii waxaan rabnaa in aan barano wax loo yaqaano quick access toolbar. quick access toolbarka wuxuu naga caawinayaa in aan bottomo aan kusoo darno amba icono in aan kusoo darno markasta oo aan wax sameynayno si aan u isticmaalno iconadaasi si marka hadhow howshay kugu fududaato ayaa waxaa loo sameeyey marka quick access toolbarka ayaa loo sameeyey. okay maanta waxaan baranaynaa marka sidee ayaan iconada aan ugu dari karnaa. kasoo qaadbo qofka ani camal waxaan isticmaalaa markastaba borderkan ayaan isticmaalaa oo borderkan ayaan markasta isticmaalaa si marka halkan aan ugu daro waa left click ayaan taabanaya right click ayaan taabanaya sorry kabacdi ayaan add quick access toolbar ayaan click ku siinayaa anoo isticmaalaa left click saa ujeedaan kor ayuu kasoo muuqday. sidoo kale haddii ay isticmaalsid wax loo yaqaano alignmentiga kasoo qaadba centerka right click ayaa taabanaysa add ayaa leedahay dabcan wuu kusoo darayaa. kasoo qaadba waxaa laga yaabaa inaa isticmaashid accounting currency accounting number formatka okay left right click ayaa taabanaysa add ayaa leedahay wuu kusoo darayaa. for example hadhow markii qofka uu isticmaalayo si yaroo fudud ayuu halkan click ugu siinayaa dabcan wuu isticmaalayaa si yaroo fudud ayuu halkan click ugu siinayaa. okay kaliya waxa homeka ku jiro iconada homeka ku jiro kaliya laguma soo daro all iconiska meelahan ku jiro oo dhan ayaa kusoo dari kartaa. for example haddii aan sortigan aan ku daro dabcan sortiga waan ku daray haddii aan dhaho sortiga isticmaal dabcan waan isticmaali karaa oo sidaas ayaan u isticmaalayaa. haddii for example aan u baahanahay iconadan qaar ka mid a aanan u baahnin oo aan rabay inaan ka saaro quick access toolbarka oo aan ka bixiyo okay right click ayaan taabanaya remove ayaan leeyahay from quick access toolbar click ayaan siinayaa right click ayaan taabanaya remove from access toolbar left click ayaan taabanaya sidaas ayaan uga saari karaa. casharkeena maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. hortaan shaashadda waxaa kasoo muuqanayo contact informationka amba si ay igula soo xiriiri kartid. sidoo kale waxaa igala socon kartaa ciwaankeyga youtube-ka haddaa igu soo subscribe garaysid dabcan waxaa helaysaa wax kasta oo aan soo dhigay email aan ayaa ku helaysaa isla markii aan soo dhiga horena waa ka helaysaa waana igala socon kartaa insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa igu soo dirsan kartaa facebookeyga halkaas oo aan soo dhigo casharada aan soo dhigo youtube-ka automatically hore ayaan usoo dhigaa si dadka ay ula socdaan. insha allahu tacaala marka maanta casharkeena intaas ayuu noo ahaanaya annagoo halkan aan kasii wadi doono insha allahu tacaala aanan kusoo dari doono casharo very interesting amba aad iyo aad u xiiso badan isla markaasna oo noqon doono casharo aadan xataa iskuulkaaga aadan ku dhiganin. be ready for that insha allahu tacaala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.